بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان وناكسن مeel kastoo joogtiin walaalaha igu xiran dhammaantiin waad salaamay soo dhawaada maanta waxaan oo wadaa macmacaan aad iyo aad u fiican oo qabow ma sha Allah oo ramadaanka kadib afurka kadib waxaan ku dhahay isku qaboojinaysid taraawiix aan inaba caadi ahayn soo u yeesho ujeedin saas ka dheeraan buu kalarkaas oo quruxda badan aan ka soo dhigay adiga kugu xiran tahay waxyaabaha ku darsanaysid iyo qaabka u sharaxanaysid laakiin waa keeg yaro aad iyo aad u qabow oo aadna u macaan ku qaboojinayo jirka dhanna ku qaboojinayo ma sha Allah tabarakallah runtii waxaan ku dhahay marka akiciisid waxaan ku dhahay soonkii iyo kuleelkii wixii dhanna waa hilmaamee aad iyo aad ku cajab gelin doonaa saana u suubiyay ku soo baxay oo jeedin fridge-ka soo gashtay waa qaboojiyay marka waa lagu yaacay waxyaabaha aan ka suubinayo iyo waxaan ka hirgeliyana insha Allah wada la wadaagayaa video-ga dhameysto waa kuwana alaabtan ka sameeyay meeshaan inta waxaan ku haystaa waa rooti ama keeg yar oo si fiican u soo hagaajiyay meeshaan waxaan kala ku haystaa jello-gaas oo vanilla waa soo furfurayaa alaabaha waxyaabo yar yar oo ka kooban yahay saaid u badnayn conserve milk caanaha macaan oo ayagana wax faada lahayn sidoo kale strawberry-gaas oo asagana aan baruur iyo waxba ku jirin laakiin kulligood fruit iyo wax la soo maceeyay iyo ma sha Allah inaba caadi ma ahna alaabta ku faa'iido doontaa soo tijaabiya caanihi yaa ku soo shubay macaanay hadda baaquliga caanaha macaan hadartu half ka reeban kartaa dartooda isticmaal kartaa aniga keeg mid ka weyn aad suubinay daas waa aan kulli isticmaalay gasacayna uu yar yahay oo caanaha size-ka u yaraan soo gatay marka insha Allah waa suubsan kartaa xataa caanaha caano oo adiga guriga ku yeeshaa sokorta ku darsan kartaa ilaa ay ka soo adkaato ay ka soo noqoto waraanga yar ku daree waa kana sidaana hadda caanihi ugu soo shubtay sidoo kale meesha waxaan ku haystaa koobkaas waa 3 qaado camal marka 9 qaado caana camal meesha ku shubaay bakeeriga oo shaaha lagu cabo haafkiisa caana waaye intaas isku soo qasay caanihi macaana iyo caano fresh aan isku soo qasay hadda waxaan ku soo darayaa jello-gigana waa vanilla wax oo faad iyo wax jirka dhibaayana ma ku jirto kalari badanna ma lahan sokortiisana aad u yar tahay soo waa kana intaana isku soo qasaya hadda runtii keegan aad u fudud yahay dabna ma saaraysid oo wax dab saaraysid ma ahan ma sha Allah inaba caadi ma ahan aniga maalin kasta waa suubiya marka xaas dhahay bal maanta asxaabtaada dad badan waxay ku dhaheen macaanka soo geli saas aan kugu soo geliyay waa kana saana iskugu soo qasay intuu ka qasmaayo creamkaas walaaqaya xataa wax badan ma aha 2 daqiiqo ku filan soo hadda waa soo qasay intaan soo dhigtay keegayga waa kana marka aad suubsan kartid wax yar oo easy oo simple waaye keega waa soo jaraya aniga hadda dheer u jaro birtayda ma qabsanayo soo waa yaraysanaya waxay igu dayaneen size-ka birtaada aad ku gelinaysid ay ku xiran tahay haddii birtaada ee bir marka si fiican oo waaweyn u dheer u jirtid ku galaayo uu yahay dhag waaye soo aniga yariisa u jaranay hadda caanihi macaa waaye wax yar aan ku soo shubay keegii aan soo jaray asaas u dhigayaa inuu ka adkaado cuslaado ma la rabo keega qafiif inuu ku ahaado waaye waxa labada dhinac saas ku soo baxay keeg masrooti waxa aad jeceshaa ku subsan kartaa waa easy waa kana saana u soo dhigaya kulli oo ku soo safaaya asxaabta waa huba inaad ka helisiin hadda step-kan martiin oo sidaan u suubsitiin ma sha Allah waaye macaan qabow badan oo inaba caadi ahaan waaye runtii birtaada ku xirantaa markaa ku dhahaaya saas camal ani birteeda inaa u gagaliyo ma ooyay hadaan saaid u dheerka 2 xabo ka dhigan mise 3 ka dhigan iyo ma galaayo soo inaa saa u yaryareeyo waaye adiga birtaada ku xirantaa daarti 2 xabo dheer ka dhiganay markaas midna hoos dhiganay midna kor hadartaana waxa ku soo daraaya mar labaad oo korka uga soo shubaayo waxa waaye caanaha macaanka oo soo qasaayay iyo creamkii isku soo qasaayay caano freshti adiga waa creamkii macaay haddana dushaan ka soo saaraya saa marka u soo marayo hadhow asaga hoos u degaayo soo ma baahno inaa wax badan ku daro waxa hilmaamay inaa mariyo creamkan aan marinayaa web creamkaas oo diyaarsan aad iyo aad waxa kaaga dhigaya wax kale to ma sha Allah dhadhanka dhan asaga ku toosinay asaga daad heesanin wax kale to waxa kaligood ma ku shaqeynayaan soo inaa creamkaas heesatid waaye raali ahaada asxaabta
saasaan kasoo dhigayaa, saasaan usoo marinayaa kulligiis kor iyo hoosaan kasoo marinayaa. markaa kareemkan saa usoo mariya haddana kii kaleetaan dusha ka saaraya asxaabta. sidii tii hore usaa saaray haddana usaa saaraya, ma fahamteen? markaa casuumaad qabtid oo kaleetona kaaliska arag walaahi qofka u geysid maasha Allah kuu ducaynaya soo qabo oo gurigaada ka baxaya habi ee. sidaasaan kusoo wadaaya ilaa aan ka buuxiyo, laakiin make sure inuusan kaa cuslaanin keega. haddii uu kaa cuslaado oo culeys u jirtid hadhow waxa waaye macaanka waa inaa u badisid, kan hoosta aad ka gelinaysid iyo midka dhexda uga shubaysid. laakiin ani qafiif waxaa uga dhigoyaa waxa waaye qaybta kore bisaa rabaa inaan cream side ka dhigo, inta kale xoogaa qafiif aan ka dhigaya, ma fahamteen? wuu ii soo harharay marka geesaha aan ku cabaynaya maaragta, ma rabo inaan tuuro, inaan ku buuxiyaa rabaa. waa kana hadda sidaanaa kusoo dhameeyey. sidoo kale haddana dusha waxaa uga shubayaa caanaha oo macaan iyo creamkaa isku soo qasay. mar labaad dusha uga shubayaa wixii iisoo haray dhan. hadeertaan waayo creamka badan waxaa la rabaa inaad ku shubtid, sababta hoos u degaa si tartiib uu u qoynaya u degaaya, ma fahamtee? korkana wuxuu kaaga dhigaya wax qurux badan maasha Allah. keegaa dhan looma jeedaayo, hadhow wuxuu noqonayaa creamy kaala arag runtii ilmaha iyo qof kastana wuu ka helayaa. ilmaha sooman oo kaleeto hadaa u suubisid waxaan ku dhaha maasha Allah. sidoo kaleetaa dusha kasoo marinaya creamkii, saasaa ugu soo marinaya isagana. saa inaa ugu soo wado waaye kulligiis ilaa oo meesha ugu dambeyso creamka. markaana waxa waaye stepki ugu dambeeyay waaye. marka xoogaa inaa creamka u badisid way fiican tahay. haddii aad diidaysid creamka inuu iskaga kaa qasmo, 2 qaado oo kala different u isticmaal, kan hoose iyo kan kore, si labada cream ay different kuugu noqdaan. laakiin haddii aniga camal aa gurigaaga u subsanaysid you don't care, saas iskaga marsanee because waxa waaye dhibkan waa fiicna. laakiin haddaa gadaysid mise qof aa u geynaysid sidoo kaleeto si qurux badan inaa u hagaajisid waaye. ani hadda waxa waaye waa isdhexgelinaya, mid kala jeclina kareemada soo kay qismaan, sababtoo guriga u suubsanaa. kareemka waa baby creamka isticmaalaya, hadda waa kaas waa idin tusay. sidoo kaleeto kanada aan ku darsanayana waxa waaye strawberry oo gasaca oo diyaarsan. haddii adiga aad rabin strawberry sidaan u diyaarsan waa suubsan kartaa. inta strawberry-gaaga jajaratid biyo iyo sonkor ku karinaysaa ilaa uu kaaga bislaado, markaasaa dhiganee. markuu ku qabobasaan camal ugu suubsanee. maasha Allah tabarakallah. kan bama xumo oo waxyaabaha ku jiro waxa waaye maasha Allah kulligood waa wax iska natural soo aniga hadda maadaama la soomaya ma rabo inaan isdhibo, kana ku isticmaalayaa. marka asxaabta sidaan quruxda badan ugu soo baxayaa oo ujeediin waan soo diyaarinaa. kalarka soo isku keenaya oo ujeediin 3 kalarkii oo creamka dhaaga ahay, creamka cad iyo kan oo gaduudka wuxuu kugu soo baxaya wax qurux badan inaba caadi ahayn. haddaa rabtid inuu isaga kaa qasmin sida ani hadda uu xogaa isku taataabanayo kaleeto, waxaa suubinaya 3 qaado different oo isticmaale. sidoo kaleetana waxa waaye markaa ku daraysid strawberry-ga waxaa ka dhigaysaa qaadada dardar meesha artida uga shubee. asxaabta soo diyaariyay hadda sidaan ugu soo baxay fridge-kan gelinaya, ma fahamteen? 3 saacadood fridge-ka igu jiraya. markaas aan soo bixiyay aan soo bixinaya kadib. laakiin idinka waxa waaye 3 saacadood ka badan inuu kugu jiro waaye, ugu yaraan 6 saacadood inuu kugu jiro waaye si uu qabow saaid kugu noqdo. aniga afurkii aan geliyay agtiisa 2 saacana waa soo bixiyay. marka waxa waaye 3 saacadood camal uu igu jiray. bacda ulumiya afka uga xiraaya, markaas dalq ku siinay fridge-ka. maasha Allah tabarakallah. inaba caadi ma ahan alaabtan qabow oo laga haray waaye. hadeertaan itana waa soo bixiyay markaa banaanka soo dhigay waaye oo cunowga loo diyaariyay. sidaan ku soo baxa quruxda badan maasha Allah tabarakallah. intaa haysan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha siiyo, annagana Ilaahay ha noo siyaadiyo. inuu saaid u dhagaa fiican, laakiin dhib ma lahan. hadda qabow meesha ugu fiicnaydu maraaya, ma fahamteen? ice cream camal waa runtii lahankii iyo soonkii iyo daalkii wixii dhan waa hilmaameysaa. kaaliska arag waa kanaasaana ku soo baxay asxaabteena.
aad u macyahay aadna u qaboow yahay anaan ka hubo sidaan haddaa u subsatidna waa ka helaysaa runtii aad uga helaysiin ani ma jecelina macmacaanka badan suubiyo sababtoo ah dadka macaanka jecel ahay guriga waa ka ilaaliyaa laakiin macaan soo geli markay dhahdeen hadda waa kanoo sahal ah idiin soo geliyay intaa ku kulmayna videoga xiga waxaan kaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.